madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ku guda jira socdaalkiisii gobolka ayaa kormeer indhaindhayna ku soo maray cilbiyoodyada ku yaala bariga magaaladani Boorame ee shirkadda adeegga biyaha Shaab ee gobolka Awdal ay uga keento shacbiga ku dhaqan magaaladani Boorama. Madaxweyne ku-xigeenku ay kormeerkiisan ku wehelinayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada, maamulka gobolka iyo mas'uuliyiinta ugu sarreeya boorka iyo maamulka shirkadda Shaab. Kormeerka indhaindhaynta kadib waxa warbaahinta si wada ula hadlay maareeyaha wakaalada biyaha gobolka Awdal ee Shaab Aadan Maxamuud Hoori Curaagte iyo gudoomiyaha boorka sare ee shirkadda Shaab Maxamed Nuur Faahiye waxayna ka warbixiyeen horumarka laxaad kale ay ku talaabsatay shirkadda Shaab ee gobolkan Awdal. halkaas 16 motor baa yaala, halkana 4 motor baa yaalo waaweyn iyo 4 booster oo barkadan biyaha ka qaada. sidaa darteed waxaan ka shaqeynaa maalin oo dhan baabuur baa wuxuu saaran shidaalka. marka midna madaxweyne iyo waftiga dhamaantii gobolka iyo degmada u dhan maanta waxaan ku jirnaa barbowser ilaa 2 sano ka shaqeynayna sidii solar aan uga dhigi lahayn 50%. taasina wafudoodu dhawaan bay noo bilaabmaysaa. aniga oo intaasi waxaan marsaa darteed aqalkan aan joogno lacagta ku baxday 2 aqal bay dhisi lahayd inaad taana maartay noo dhagan gulaataan oo arkaan nagala shaqeeysan waayo hadii magaalada solar soo gal waliba waxay maartay aaminsan yihiin hadii sida maamulku wanaagsan yahay solarkana loo isticmaalo oo Boorama tusaale laga dhigo tusaalihii inuu jirayo ay ahaan jirtay maartay maamul wanaaga wad ogtiinoo mashiinada waaweyn horta horena wax yar baa ku soo bilown maanta mashiinada waaweyn ayaan keenay halka wax loo dhaafo oo kolka maartay wax shidaal koronto shidaal lagu helo ma garanayo waxa kaliya yani waxaan gaadhnay heerkii aan u gudbi lahayn solarka ama tamarta cadceedda. wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha, barasaabka gobolka Awdal duqa Booramo oo dhankooga hadalka iska daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii kamid ah waxa weeyaan horta waa geeska go'an ee murun la gelin maayo wixii kale shakhsiyaad ama barayfida ayaa lagu murmi doona laakiin wixii ummadda loogu adeegayo haday daar tahay iyo haday dow tahay iyo haday dekid tahayba waxay u baahan yihiin way noo sheegeenoo waxay u baahan yihiin waa baahi inaga inagu xidhanayno qaban karee waa fulinayna waa dhul in loo baneeyo waxa weyn maanta inuu weydiisay waana ballan qaadnay hore labaad jaayir baa laga dhawaajiyay hada jaayir waa hay'adaha la ministerkan wahay inaanu xukumo way waan ku faraxsanahay inaan maqlo marka taana wixii xaqayga aniga runtii aniga soo marisaan taana waan inaga caawin doonaa runtii waxaad iga baataan cabashooyinka ugu badan waa xagga beeraha runtii beeraha wasaaradda markii aan miday wax shuruuc oo diyaar ugu meeymanin laakiin imka waxaan wadnaa shuruucdii baan wadnaa kale way kordheen biyihiina waa waxa daruuriyaadka ugu weyn adduunyada marka waxa weyn hawshaad gasheen aad iyo aad ugu mahadsantihiin waa waajibkiinii laakiinse waa waajibkiinii oo si fiican aad uga soo baxdeen iminkii haatanna dee dalab baad meesha keensateen wasiirka ay khusaysana imanka meeshani waxaad laga cabanaya marka xadeeya la leeyahay waa buurahaasaa beera laga dhiganaya gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Xaaji Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo hadalka qaatay ayaa waxa uga mahadnaqay maamulka iyo mas'uuliyiinta shirkadda Shaab horumarka ballaaran ay ku talaabsadeen waxaana hadaladiisii kamid ahaa maamulka gobolka iyo degmada waxa leenahay meeshii dadka looga adeegayay inay cid u baridaan ma damac dadku waa damac beerleydu waa damac waxa weyn kolka iyagoo damac dad ku haya oo ummadii dhukay ka dhaxay dadkii ku qabsanaya ayay mikrofon soo joogsanayaan waa la dulmaya dadkii wax maanta wax dulmayay waa dadkii beeraha ya dawlad iyo dad cid walba dulmaya marka taana maamul gobol iyo degmo way u joogaan Xuseen Jaamacadde Somali Cable TV Boorama.